dhammaanteen waxaan wada jeclaysanay oo diyaar u soo dhaweynta gudoomiye ku-xigeenka koowaad baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Siraajo maalmaha shaqo u joogay caasimadda dalka Muqdisho inaan caawa ku soo dhaweyno Ismaan Xaaji Maxamuud Dufle sanatarka ayaa sheegay in asaga iyo gudoomiye Siraaji ilaa carta markii la dhaho waa 20 sano 30 sano ee qaran burburka nagu dhacay ummadda Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda waa ummad wada siyaasi ah siyaasadda ay ku dhex jirta iyo in dhageysta iyo in indhaysta marka la isku daro maanta ayuu joogaa xilkii ugu qiimaha badnaa soo xilal badan soo qabtay deegaan doorashadeena gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabelle marka aniga kolley dadkii xagga u tagay oo hambaliyada Hirshabelle caasimadda Jowhar u tagay xagga u geeyanahay mudanayaal kale oo halkan fadhiya igala mid ah maantana yahay inaan mar kale ku soo dhawow ku dhahno hambaliyada na aan kuugu sii waxaa intaas dheer hortay baa la hadlay kulli saaxiibadii ha hadlay waa ku la qabaa heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ugu horeeyo professorkayga wasiir ku-xigeenka maaliyadda marna walaalkay Cabdullaahi Sheekh Cali professor Qoloxo sidaan ka wada dheregsannahay muddooyinkan dalka inuu doorasho u dhaqaaqay maanta iyo caawa ugu dambaysana guddigii doorashada ay waqtiyeeyeen xilligii la qaban lahaa doorashada xildhibaan hore Sheekh Maxamed Amiin ayaa aayado quraan oo qiimo badan noogu furay munaasabadaas soo dhaweynta gudoomiye Siraaji ilaahay shaqadigaas u geliya mansabkaas u dhiibaa cidii doonuna ka siibaa marka laga siibaayana waxaa looga siibaa aqoon maadi mid diini dad badan oo dheer halkan joogo sida tin cajiin laga siibay oo kale haddaan nahay ummad islaama 100% waa inaan horta aaminaa in bixinta uu ilaahay iska leeyahay yaynaan ka doodin yaynaan ku gorgortamin ha dhawaato ha dheeraato isbeddelka doorashadani wuu dhacayaa waa haddaad islaam tahay diin leedahay aqoon leedahay aqli leedahay damiir iyo dadnimo ay kugu jirto wax aad ka walwashaa ma leh waayo Allahumma la maani'a lima a'dayta wala mu'diya lima mana'ta wala raada lima qadayta wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddi ya dal jalal wal ikram dawladda haday diido ama dawlad goboleedka ku diido ama Soomaali ku diido ilaahay ku qoray waad helaysaa haddii lagu la raadiyo oo alla ku qorina ma helaysid wax laga walwala marayo marka waa lagu shubanaa iyo xaq ma aha iyo xalaal la rabaa iyo cadaalad ilaahay u baacadiya ra'iisul wasaaraha labada aqal gudoonkooda midnimadeena waa guusha qarankeena ayaga wixii ay soo heshiiyeen qaadanay annaga waa ku kalsoonahay bari 20 sano ku jira siyaasadda Soomaaliya dalkana waxaan u soo shaqeeyay 40 sano cimrigaygu waa 56 jir bari Allah subhanahu wa ta'ala hadduu qoro waa soo noqonaa 20 sano siyaasadda ku jirta Khadiijo kuma jiraysa cid dhigi karta male cid aan kaga cabsi qabana male أنا هل عبس
cabsi kaliya qabatan Allah subhanahu wa ta'ala kaliya qaba waligay bini aadamka ma cabsan waxaan uga cabsadaa waa waxa Allah oo iga faray oo iga rabo inuu igu hanuuniyo markasta abidkayna ma masayrin laakiin hal masayran qaba ka bilow gabadha aniga aan dhalay 3 jeer quraanka dhamaysay xaafidad waay Allah waafajiyay waalidkay jazada janna Allah ka dhigo xaraf diin qofkii dheer waa ka masayra laakiin ma awliyo waxaan dhahay ilaa uu siyaadi anigana satrigayga qulubtayda iigin inaan xafido 114 haddaad intaan aaminsan tahay musharax heer kasta ahaw hanka heer kasta ha kugu jiro mid madaxweyne mid xildhibaan golo shacab mid aqal sare sanatar inaad noqoto dadka walaahowga qabo ama dowlad goboleedyada ku noolaadaan ama caasimada iyo gobolka banaadir ha joogaan haddaad diin leediin oo Soomaaliya dhaba tihiin waxaanay ku kalsoonaada bixintana inuu alla leeyahay ogsoonaada cidi idin ma siin karto cidina idin ma diidi karto dalkan yaa la gelinin marka tashwiish iyo wax aan jirin caawa lagu dhawaaqay maanta waa la hirgeliyay heshiiskana annaga maanan gaarin waxaa saxeexay dowlad goboleedyada mudana gudoomiye waxa kaliya la idinka rabo idinka guddigaas way idinka horeeyay barlamaankii idinka horeeyana aqbalay idinkana markaad xilka qabateen gudoonkiina ugu horeeyay ka bacdina madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen aad doorateen guddigii horaan diidna imanka sharciga qofna ma afduubi karto qofna uma rahmana Soomaaliya meesha ay tagtayna burbur inay u soo noqonayso dadkeedu diyaar u maaha marka la soo dhawo xil waaye mas'uuliyad waxa lagu dabaaldegaayo Allah idinku asturo hadday maamul tahay hadday siyaasad tahay horumar arrimo bulsho mid kale annagana wixii karaankeenna waa idin la garab taagana waayo dadka iyo deegaankaas Soomaaliya ku leenahay hakran mayno insha Allah idinkana Allah idinku asturo annagana geediga aan soo galayna Allah noo saqiro